daawadayaal ku soo dhawaada janalka Baadisooc. Waxaan soo koobi doonaa buug ku saabsan maareynta waqtiga. Buuggan ciwaankiisu yahay Maareynta Waqtigaaga oo uu qoray Thibaut Morris ayaa waxa uu yahay hage ujeedkiisu yahay inuu sare u qaado wax soo saarka waqtigaaga ugana faa'iideysato hab macno badan leh. Imise ka mid ah ahdaaftaada iyo riyooyinkaaga ayaa dib u dhigatay sababo la xiriira inaad waqti u weysay. Xilliyadan dambe qof walba waa mashquul. Uma muuqanno dad waqti u heli kara si ay diiradda u saaraan waxyaalaha ay aadka ugu baahan yihiin. Waxaan ugu sheekeynaa nafteena inaysan riyooyinkeennu muhiim ahayn. Waxaan dib u dhigaynaa aragtideennii annagoo adeegsanayna marmarsiyo isku mid ah marar badan, taasoo ah berri ayaan samaynayaa, laakiin berrito ma timaado. Sida ay sannaduhu u tagayaan, riyooyinkeennina si tartiib tartiib ayay u baaba'ayaan ilaa ay gebi ahaanba noqdaan kuwa la ilaabay. Waxaan dayacnaa saaxiibadeen, qoysaskeenna iyo xiriirada muhiimka noo ah. Annagoo isku qancinayna dib ayaan waqti ugu heli doonaa, dib ayaan ugu muujin doonaa qadarinta iyo jacaylka aan u hayno, dib ayaan u raadin doonaa, taasoo aan inta badan dhicin. Laakiin waqtigu ma naxariisto. Ilbiriqsi kasta hal mar ayuu yimaadaa, dib uguma laaban karno waqtiga, mana weydiisan karno kumanaanka saacadood ee aan ku khasaarinay waxyaalaha macno darrada, warna uma hayno waqtiga ka dhiman nolosheenna. Waxaa cad in qoraaga qaybtan uu tooshka ku ifinayo muhiimadda ay leedahay in qofku naftiisa la xisaabtamo oo uu ogaado saacadaha ugu badan waxa uu geliyo iyo waxtarka ay naftiisa, adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba u leedahay. Waxaan ognahay inay jiraan dad badan oo waqtigooda ku luminayo waxyaalo aan waxtar u lahayn oo ay iyaguba ogyihiin. Xadiis uu wariyay Allah ka raali noqday saxaabiga Mucaad bin Jabal ayaa waxa uu nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ku yiri, addoonka Ilaahay wuxuu ahaan doonaa mid maalinta qiyaamo taagan ilaa laga weydiinayo 4 shay: noloshiisa iyo waxa uu ku dhammaystay, dhallinyarnimadiisa iyo waxa uu u isticmaalay, hantidiisa sida uu ku helay una maamulay, iyo cilmigiisa sida uu uga faa'iideystay. Halkaa waxaa ka cad in qofka waqtigiisa la weydiin doono. Sidaa darteed, waxaan ogaanay inay muhiim tahay in nolosheenna aynan waqtiga ku lumin wax nafteenna u daran, adduun iyo aakhiro, gaar ahaan xilliyada dhallinyarnimada, maadaama qofka dhallinyarada uu yahay mid wax soo saar badan. Qoraaga oo ka jawaabaya sida aan u hubin karno inaan waqtigeena uga faa'iideysanno hab macno badan oo hoos u dhigaya shallaytada una qalma waxa aan gelinayno ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la raaco qodobadan. Fahamka sare u qaadidda wax soo saarka. Inaad noqoto qof waqtigiisa maareeya ayaa waxa ay kuu sahlaysaa inaad waqtigaaga u adeegsato mid wax soo saar leh. Laakiin maxaa loola jeedaa arrinkan? Qoraaga ayaa ku sharaxay ereyga wax soo saar in loola jeedo inaan sameyno waxyaalaha aan ku faraxsannahay una aragno kuwo macno badan annagoo aan ka dhex bixin dadka aan jecelnahay. Ma maareyn kartid waqtigaaga haddii aad saacadaha ugu badan maalintaada samayso waxyaalo aan macno ku lahayn, adigoo rajaynaya inay ahayd inaad meel aado, ama aad qof la joogto, ama aad wax kale samayn lahayd, amaba laga yaabo inaad hubto inaad noqon kartay qofka ugu wax soo saarka badan shirkadda haddii aad xafiiska joogi lahayd. Haddaba su'aasha isweydiinta la ayaa ah, ma tahay qof wax soo saar leh heerka shaqsi ahaaneed? In waqtigeenna aan u aragno mid macno leh ma ka dhigna inaad u baahan tahay inaad farxad ka hesho shaqadaada ama doorkaaga, laakiin waxaad macno ka heli kartaa xaaladaha adag. Tusaale ahaan, shaqadaadu way noqon kartaa mid adag, laakiin waxay kuu fududeynaysaa inaad hesho wixii aad ku dhisi lahayd mustaqbalkaaga, kan qoyskaaga iyo carruurtaada. Way noqon kartaa mid mashquul badan, laakiin waxaa laga yaabaa inay macno kuu samaynayso waxa aad qabanayso. Waxay sidoo kale noqon kartaa mid caajis ah, balse waxaa dhici karto inay kuu ogolaanayso inaad waqti la qaadato saaxiibadaada iyo macaamiisha.
haddii aan soo gaabiyo inaad maarayso waqtigaaga macnaheedu maahan in aad haysato xorriyad aad ku samayso wixii aad doonto waqtigii aad doonto. xorriyadda nooca ah waxay noqon kartaa mid aan macno badan lahayn. qoraaga ayaa waxa uu leeyahay, sida dhabta ah waxaan aaminsannahay in macnaha uu si dhab ah uga yimaado dareenka qofka u heelan. waxa uu yidhi, idinma odhanayo shaqadiinna ka tega maanta, laakiin waxaan idinku casuumayaa inaad adeegsataan waxyaalaha aad ka barateen buugga kuna dabaqdaan noloshiinna iyo sida aad hadda waqtigiina u maaraysaan. haddii ujeedkaagu yahay inaad noqoto mid shaqada uu joogo wax soo saar ku leh, waa arrin wanaagsan. haddii aad doonayso inaad u adeegsato noloshaada shakhsi ahaaneed, ayaduna waa arrin wanaagsan. xilliga qofka ugu dambaysa noloshiisa, ma jirto cid rajayn lahayd inay daawato musalsallo badan oo Netflix ah ama ay waqti ku lumiso ku dhex jirka aaladda Facebook ama sawirro badan dhigaan Instagram iyo aaladaha kale ee baraha bulshada. welina dad badan oo naga mid ah ayaa waxyaabaha waqtigooda ku lumiya iyagoo aan garanayn haba yaraatee wax macno ah oo noloshooda uu u leeyahay. taa beddelkeeda waxaan rajayn lahayn xilliga noogu dambaysa dunida inaan waqti badan gelinno waxa u wanaagsan adduunkeenna iyo aakhiradeenna, iyo inaan si wanaagsan ula noolaanno qoyskeenna iyo asxaabteenna. waxyaalaha ugu muhiimsan ee maaraynta waqtiga waa inaad samayso wax dhab ahaan macno badan u leh noloshaada. marka aad muhiim u aragto shaqadaada ama aad samayso xiriir wanaagsan, aad beerato hiwaayad ku dareensiinaysa inaad tahay qof nool, waxaad ogaanaysaa inaad waqtigaaga u adeegsanayso si wanaagsan oo saameyn leh. ka fakar hadda, marka aad gaarto maalinka kugu dambaysa ee noloshaada adduunka, kuma qiimeyn doontid noloshaada imise lacag ah ayaad samaysay ama guri weyn oo aad dhisatay. taa beddelkeeda waxaad qiimeyn doontaa waqtigaagii adduunka, inaad samaysay wax naftaada anfacaya oo u qalma waqtigii kaa galay. sidaa darteed, dhammaantiin waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad waqtigiina qiimaysaan waxa aad gelisaan si aydan hadhow uga shallaayin, maxaa yeelay qofna ma oga xilliga uu dunida ka tegayo. wax soo saarku ma ahan keliya mid ku salaysan waqtiga. iyadoo buuggan ciwaankiisu yahay maaraynta waqtiga, xaqiiqadu waxay tahay inaad noqoto qof wax soo saar leh ma ahan keliya inaad si wanaagsan u maarayso waqtiga, balse waa sida aad u maarayso howlahaaga iyo heerka awoodeed ee aad geliso si ay u noqdaan kuwa ku hergala. qoraaga oo sharaxaya arrintan ayaa yidhi, qiimaha halka saac ee waqtigaaga ka mid ah waa isbeddelaa. tusaale ahaan, waxa uu yidhi, waxaa laga yaabaa in subaxii aad leedahay awood ka badan tan habeenkii kadib marka aad shaqada ka timaado. sida ay xaqiiqadu tahay, hal saac oo xilliga subaxii ah waxa ay ka qiimo badan tahay hal saac oo habeenkii ah. xitaa macquul 2 saac ama 3 saac oo habeenkii ah inay ka qiimo badan tahay. in aadan saacaddaasi u isticmaalin si waxtar leh ayaa waxa ay ka dhigan tahay inaad hoos u dhigtay heerkaaga wax soo saar. haddaan soo koobo, wax soo saarku ma ahan keliya waqtiga, laakiin sidoo kale waa heerka awoodda aad u hayso waqtigaasi. ilbiriqsi ama saacad ka mid a waqtigaaga waxa ay leedahay qiimo aad u sarreysa haddii aad geliso waxa aad xilligaasi samaynayso. tusaale ahaan, qiyaaso in aan go'aansaday in 1 saac oo subaxii ah aan geliyo akhriska buug, balse daqiiqad kasta waxaan eegayaa taleefankayga. waxaan hubinayaa fariimaha ii soo dhaca. marxaladdani imisay dhab ahaan u qalantaa 1 saac ee waqtigayga ka mid ah ee aan ugu talagalay inaan buuggaas ku akhriyo? ma 30 daqiiqo? ma 15 daqiiqo? ma 5 daqiiqo? way adag tahay in la sheego, laakiin hubaal uma qalanto 60 daqiiqo oo dhammaystiran. si aad wax soo saar u yeelato, diiradda saar shaqada aad gacanta ku hayso, dhinacna iska dhig wax kasta oo kaa dhexgeli kara. qiimaha 1 saac ee waqtigaaga ka mid ah waxa ay si miisaan leh ugu xiran tahay shaqada aad qabanayso xilligaasi iyo xaddiga ay shaqadu ku filan tahay hadafka, taasoo loola jeedo ujeedooyinka aad doonayso in aad fuliso iyo sida aad u doonayso in aad noqoto qof wax soo saar leh. mar kasta oo uu ku cad yahay hadafkaaga ama istiraatiijiyadda ama habraaca, waa mar kasta oo aad awooddo inaad si wanaagsan u aqoonsato howlaha muhiimka ah ee ay tahay inaad qabato. arrinta kale, qiimaha 1 saac ee waqtigaaga ka mid ah waxay ku xiran tahay heerka farxadda aad dareemayso. haddii aad ku faraxsan tahay samaynta shay, waxaad u helaysaa awood, taasoo suuro gelinaysa inaad wax badan qabato. wax dhibaato ah kaama soo gaarayo inaad naftaada ku dhiirigeliso
aad bayna u yar tahay inaad uga mashquusho wax kale. Tani waa sababta dadka ku faraxsan waxa ay qabanayaan ay sanado badan ugu adkaystaan goobta ay ka shaqeeyaan, uguna muuqdaan kuwa haya awood ka badan dadka kale. Mar walba oo aad ku faraxsan tahay waxa aad qabanayso, waa mar walba oo aad si wanaagsan u qabanayso. Sida aad arkayso, wax soo saarku inta badan waa inaad hubiso inaad qabanayso shaqadii loo baahnaa, kuna qabanayso awooddii loo baahnaa, kuna fognaato. Kadib ayay kuu suurtagelaysaa dhammaystirka walxa badan oo ay ahayd inaad qabato. Bal adiga iska waran, sideed u adeegsataa awoodda aad hayso maalinkii? Daawadayaal, intaa ayay ku egtahay qaybtan aan soo koobnay ee buugga Maareynta Waqtiga. Tan intaan ku kulmi doono qaybo kale, waxaan idinkaga tegaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.